Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin wanaagsan walaalada isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba insha Allah bidnillaahi kariim. Maanta waxaan noo wadaa video yar insha Allah bidnillaahi kariim. Waxaan taaganahay halka iyo jikada sidaad aragtaanba. Marka maanta waxaan noo wadaa video yar insha Allah maaska wajiga maasha Allah kaaga dhigayo hadduu Ilaahay yiraahdo laba nooc oo maaska oo waxaan noo wadaa wajiga kuu qurxinayo maasha Allah iyo mid korka kuu qurxinayo maasha Allah tabaarakallah. marka walaalada qaaliga mar walba waxaan jeclahay waxaan ka faa'iido inaad igala faa'iidaan insha Allah bidnillaahi kariim oo ila aragtaan oo idinkana yani aad ka faa'iidaan hadduu Ilaahay yiraahdo. marka asxaabteeda maanta videogaas ayaan noo wadaa ila socda ayaan idin leeyahay insha Allah bidnillaahi kariim. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawaada walaalada maalin wanaagsan insha Allah waxaan rajeynayaa meel walba joogtaan inaad caafimaad ku joogtaan hadduu Ilaahay yiraahdo. asxaabteeda qaaliga ah waxaan idin leeyahay fiidiyoyada noo share gareeya insha Allah like share comment la wadaag walaalada asxaabtaada eheladaada insha Allah. sidaan hore niigu sheegayba waan niiga mahad celinayaa. sidaan hore niigu sheegayba waxaan noo wadaa maanta laba step oo maaska iyo scrub ah insha Allah bidnillaahi kariim. midna jirka aad ku nadiifsanayso midna aad ku nadiifsanayso wajigaaga hadduu Ilaahay yiraahdo oo dabiici ah oo maxaa iraahdaa qurux kaaga dhigayo shining ku siinayo korka iyo wajigaba maxaa iraahdaa soft kaaga dhigayo maasha Allah tabaarakallah oodan u baahanaynin kiimiko iyo waxyaabaha xun ee yani jirka bedelayo insha Allah. wax jirkaaga bedelayo maaha waa wax yani natural ah oo gurigaaga aad ku dhex samaysan karto يعني دلال iyo qurux ma ogi aan wax dhiba ku keenaynin insha Allah bidnillaahi kariim. marka walaalada hadaad alaabtan isticmaasho maalin kasta waxba kaama dhibayso maalin dhaaf sida doonta ayaad u isticmaali kartaa insha Allah. jirkaaga qurux buu ku siinayaa ma ogi wax dhiba ku keenayo ma jirto. aniga waan ka faa'iiday waxaan jeclahay mar walba wixii aan ka faa'iiday inaad igala faa'iidaan idinkana insha Allah bidnillaahi kariim. hablaha oo mar walba yani isticmaalo ay sheeg make upka aad ayuu u anfacayaa oo jirka dufan ayuu u siinayaa yani uu u nafaqeynayaa dalaal ayuu u siinayaa wixii make upka yani uu ku reebay oo dhan ayuu ka ridayaa insha Allah. hablaha aan isticmaalinna sidaas leeg dalaal iyo qurux ayuu siinayaa insha Allah. marka asxaabteeda qaaliga ah maanta alaabtaas ayaa noo wadaa hadduu Ilaahay yiraahdo. marka waxaan idin leeyahay idinkana ka faa'iideysta insha Allah. intaan garanaynin inta garanaysana dee wayba garanaysaa maasha Allah. ilaahay u siyaadiyo garashadooda intaan aqoonin waxaan leeyahay ka faa'iideysta. maanta alaabtan ayaa noo wadaa insha Allah. marka hadda waxaan guda galaynaa hawsheeni. hadda halkan waxaan ku haystaa waa honey malab kan waa malab kaasna waa aloe vera gel ama dacar hal xabo moos ah insha Allah bidnillaahi kariim. waxa ii yaala laba baaquli baaquligaas kalena waxa iigu jiro waa sokor sidaad aragtaan. halkan waxaan ku haystaa garsiriinkan waxaan ka iibsaday dukaanka alaabta dabiiciga ah lagu gado Holland Bride la dhaho. hadda uu iga sii dhamaanayaa in yar ayaa iigu jirto dukaankaas ayaan ka iibsaday. jirka nadiif ayuu ka dhigayaa naacim ayuu kaaga dhigayaa uu ku jilcinayaa quruxna uu kaaga dhigayaa. marka insha Allah intaas ayaan hadda waxaan ka kala sameynayaa laba nooc insha Allah scrub iyo maxaa iraahdaa maaska oo wajiga aan u rabo hadduu Ilaahay yiraahdo. marka hadda waxaan guda galaynaa in aan isku dardarsano alaabteeni iyo qaabka aan isku dardarsan lahayn. idinkana waxaan idin leeyahay fiidiyoyada share noo dhaha like comment waana niiga mahad celinaynaa. walaalada mar walba nagu soo kordhan waxaan leenahay kusoo dhawaada gacmo furan. asxaabta kalena waxaan leenahay haddaad booqato channelka oo aad ka hesho la wadaag asxaabtaada subscribe noo saar insha Allah si aad uga faa'iidaan iyagana. marka walaalada qaaliga hadda mooskii waa kala goosanayaa sidaad aragtaanba jab ayaan ka isticmaalayaa insha Allah bidnillaahi kariim. jab ayaan u baahanahay jabka kalena waan iska dhigayaa hadduu Ilaahay yiraahdo. marka waa inaad sidaas u googoosataa insha Allah tartiibtaada mindidaada soo qaada saas u googooso insha Allah bidnillaahi kariim aayar. marka waxaan sameynaynaa waan ridqeynaa ama waan shiidi doonaa insha Allah. mooska sidiisa ma jijibinayo gacan kuma jijibinayo diirka mooskana waan rabaa laftirkiisa intaas ayaan ka xaquuqanayaa ama ka xoqanayaa wuu fiican yahay isaga laftirkiisa. maaskahana wuxuu siinayaa yani jismi oo yani wuxuu siinayaa culays iyo adeeg ayuu ka dhigayaa wax uu dhibayana ma lahan waa isla mooskiun. marka intaas ayaan hadda isku soo shiidanayaa insha Allah bidnillaahi kariim oo aan mashiinka gelinayaa hadduu Ilaahay yiraahdo. baaquli yar ayaan ku ridanayaa kabacdina mashiinka ayaan ku shubanayaa baaquligaas ayaan kusoo gedisan doonaa markaan shiido insha Allah bidnillaahi kariim. sida ay la socdo daawada insha Allah min bilow ilaa dhamaad. waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan haddaad tijaabisaan
oo aad arki doontaan natiijadiisa insha allah bidnillaahi kariim. sideedana waxaa fiican waxyaabaha dabiiciga inaan la isku nadiifiyo. hadda dawo waa la nacay, waa laga baxay. marka asxaabteeda qaaliga ah, hadda waan soo shiidanayaa insha allah, waana isku soo noqonaynaa markaan soo shiito hadduu ilaahay yiraahdo. walaalada qaaliga ah, hadda sidaad aragtaan mooskeenii waa kaasaa, waa soo shiidanay maasha allah tabaaraka allah. marka hadda waan kala qaybsan doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. qaybna scrub ayaan ka dhiganaynaa, qaybna face mask ayaan ka dhiganaynaa insha allah bidnillaahi kariim. hadda qaybta sokorta aan ku shubaayo ayaan scrubka u wadaa hadduu ilaahay yiraahdo. korka ayaan ku xaquuqayaa ama ku ruganaynaa insha allah, oo scrub aan uga dhiganaynaa. inta badan mooska waxaan ku shubayaa qaybta scrubka because faceka wax yar ayuu u baahan yahay, wax badan uma baahno. laakiin jirka wuu weyn yahay, inaa xoogaa u badisid way fiican tahay si uu kuu gaaro insha allah. marka hadda qeybtii wejiga ayaan hadda waxaan ku darsanayaa aloe vera gel ama dacartana kaalin weyn ayay jirka inay nadiifiso ka qaadataa. jirka, timaha, nooc walba kaalin weyn ayay ka qaadataa. malabka sidaas sileeg waa jeermis tire, waa dhalaaliyo, wejiga wuu dhalaalinayaa, jeermiska wuu dilayaa. marka insha allah kasir malab ah iyo hadda waxaan isku darsaday in yar oo dacara iyo mooskii aan soo shiitay ee aad arkayseen qayb ka mid ah. intaas hadda waxaan u wadaa hadduu ilaahay yiraahdo faceka, hadduu ilaahay yiraahdo wejiga ayaan marinayaa intaas insha allah. marka hadda waxaan sameynayaa, waan isku qasayaa, waxaan ku darsanayaa in yar oo qaandada afkeeda hore ah oo face bag ah. isagana wejiga wuu nadiifiyaa face bagga, wuu iftiin iyo dhalaal yar ayuu siinayaa, wuuna fiican yahay. maaskahana madmadowga dadka jirka wuu ka saaraa. hadduu duduub wejigaaga indhahaaga hoostooda madow leeyahay, haddii uu kusoo galaayo jirkaaga inuu isku ururo uu sameynayo indhaha agtooda iyo waxaas dhan wuu biinayaa. maasha allah aad ayuu ugu fiican yahay. marka hadda intii wejiga aan u diyaarsanay waa intaas aad aragtaan maasha allah tabaaraka allah ee aad u jeedaan. inta kalena waan qasan doonaa, isagana waxyaabo kale ayaan ku darsan doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. marka hadda kii faceka waa noo diyaar. hadda waxaan diyaarinaynaa kii wejiga, kii aan dhaho jirka insha allah. marka hadda waxaan ku darsanaya waa galisiriinka aan sheegayay ee dukaanka dabiiciga, alaab dabiiciga lagu gado aan kasoo gatay. Holland Bride lahaa dukaanka, wadankan ku noolnahay Netherland ayuu ku yaalaa. waxaan filayaa meel walbana inuu ku yaalo dabcan. haddii aad rabto internetka waad gelin kartaa magaciisa, waxaad rabto waad ka dalban kartaa. marka hadda halkaas waxaan ku darsaday galisiriin. waxaan kaloo ku darsan doonaa insha allah maaska ii qasnaa oo ii yaalay oo fridge-ka iigu jiray. marka maaskahan waxaa ku jira aloe vera ku jirto, dacartaas ku jirto, caanaan ku qasay, dacara ku jirto, maxaa idhaahdaaye waan ku dul darsanayaa isagana insha allah. jirka ayaan intaas marinayaa, waan isku qasayaa sidaad aragtaanba. marka jirka ayaan intaas u wadaa, gacmaha, lugaha, meel walbo. marka sidaan ognahay hadda xilliga lagu jiro samar ayaa la galay, waa laga baxay xilligii sharbaadada iyo buudka la isku xirxirayay. marka waa muhiim lugahaaga inaad ka shaqeyso oo nadiifiso gacmahaaga, lugahaaga, jirkaaga. marka kale wuuba kuu huursan yihiin oo waxaa kuu huurinaya sharbaadada iyo kabaha buudka ah. laakiin hadda maadaama xilli qaboobihii laga yaro baxay oo samarkii la galay, kaba furanaa la xiranaya, kuleylaa la galay. lugahaaga inay si yaroo qurux badan kuu ahaadaan way fiican tahay. jirkaaga haddii aad wejigii intaa qurxiso lugihii iyo gacmihii haraq iyo qolof ku saaran yahay waa foolxumo. marka waa inaad wada nadiifisaa gedigood ood isku ekeysiisataa insha allah. isku ekeysiintana maahan inaad dawo isku cadeyso, waa inaad si dabiici ah aa u nadiifsataa insha allah bidnillaahi. marka walaalada waa muhiim intaas in jirka la hagaajiyo, la nadiifiyo, la isku ekeysiiyo, qurux laga dhigto maasha allah tabaaraka allah. marka asxaabteeda qaaliga hadda scrub-keeni iyo maaskaheeni labadaas nooc ayaan usoo kala sameysanay insha allah. gabadhii taqaana way taqaan, gabadhaan aqoona ka faa'iideysato ha isticmaasho, ha isku daydo, ha tijaabiso insha allah. result fiican inay ka heli doonto ayaan rajeynayaa, sidaan anigaba uga helay hadduu ilaahay yiraahdo. markaad iska dhaqlano ay moisturizerka haysatid ee aad isticmaashid ayaad isticmaali kartaa jirkaaga oo aad marsan kartaa insha allah. marka walaaladii qaaliga alaabteenii maanta aan noogu talagalay, maaskihii iyo scrubkii aan noogu talagalay, qaabkaas ayaan usoo diyaariyey. waad aragtaan maasha allah quruxda badan. jirkaagana sidaas ayuu u ekeysiinayaa, yelowgaas quruxda badan ayaad noqonaysaa oo iftiin ah maasha allah.
dacartana kaalin ayay ka qaadataa in jirka lagu nadiifiyo malabka sidaas sileeg garsariinkana aad ayuu u fiican yahay maasha allah huruudda sidaas sileeg way dhalaalisaa facebooka marka haddaad ka heshaan like share comment waana ku mahadsantihiin waxaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu